ugaas maxamed jaamac ugaas baruur ayaa si rasmi ah u wareejiyay gaari xamuul ah oo in ka badan 16 casho ku afduunaa degmada Shaxda ee gobolka Karkaar. gaadhigan oo rar u waday magaalada Gaalkacyo kana yimid magaalada Boosaaso ayaa si nabad ah loogu celiyay dadkii lahaa kadib dadaal ay sameeyeen ismada iyo mas'uuliyiinta gobolka. munaasabada wareejinta gaadhigan waxaa goobjoog ka ah taliyaha gobolka Karkaar Xuseen Cali Maxamuud iyo mas'uuliyiin kale oo ka shaqeynaya siideyntiisa. ugaas maxamed jaamac ugaas baruur oo dhacdadan saf dheer uga yimid magaalada Boosaaso muddana ku hawlanaa sidii xal waara loogu heli lahaa baabuurkan ayaa hadal ka jeediyay goobta lagu wareejinayo gaadhiga, isagoo u mahad celiyay dhammaan cid kasta oo juhdi ku bixisay xalinta xiisadan, isagoo xusay in wada hadal iyo waliba afgarad lagu dhameeyay arrinta taas oo muujinaysa muhiimadda ay nabaddu u leedahay bulshada. mas'uuliyiinta gobolka ayaa dhankooda uga digay dadka falalka noocan oo kala ah ku lug yeesha, iyagoona ballan qaaday inay xoojin doonaan nabadgelyada wadooyinka si looga hortago falalka noocan oo kale afduubka ah. ugaaska oo ka hadlay arrimahaasina waxaa ka mid ah hadaladiisii. laamigii uu soo koray gaarigii oo aadayo Gaalkacyo meeshii awalba oo laga lahaa oo u wado uu raran yahay, waxaana saaran shamiindo. marka dadkii shamiindadaas lahaana 20kii bari ay ka maqneed shamiindadaas ilaahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo, wax khayr qabo Allah ugu bedelo, faa'iido fiican Allah ka siiyo. 20ka bari oo ka xanibneed shamiindada mideeda kalena ninka gaariga iskalena ilaahay 20kii bari oo ka xanibna gaarigana ilaahay waxaan ugu barinay bedel khayr qabo Allah siiyo dhamaantood. run ahaantii ma fiicno dadka walaalaha ah inay baabuurta la kala afduubo ama xoolo la isu qabsado, waa arrin aad qalad u ah. wax badanayna soo noqotay inay dib dama u soo noqonaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu wa ta'aala. dib damana yaa dhaqankan amal la baranin lagu amal falin. marka sidoo ugu dhaqsiimaha badan nabadgelyada hala adkeeyo, ammaanka Puntland hala adkeeyo. ninkii wax qabo sharciga yaalo, sharciga ha tago. ninkii dad wax ka rabo sharciga ha tiigsado, laakiin baabuur wadada marayaan afduubaya wax lagu hadlo ma aha. warkaas hala bedelo, dhaqankaas hala bedelo. hadda nimankii baabuurka shilin iyagoo la siin ka soo qaadnay ayna nasiiyeen, marka iyagana waxay ilaahay gacanteena geliyo iyagana waa siin doonaa. awalba xoolo sheeganayeen, xoolaha ka maqnaa, xoolahoodan insha Allah ilaahay ha u sahlo sida ugu dhaqsiimaha badan. marka walaalayaal, nabadgelyada hala adkeeyo, walaalnimada hala adkeeyo, ehelnimada hala adkeeyo. run ahaantii waxaan ilaahay ka baryay subxaanahu wa ta'aala dadka walaalaha inay isu soo dumaan qalbigooda iyo meel walba oo dhan.